هلا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومام الصومالي بريغان gaariga wadooyinani waa wadooyinka magaalada Edmonton waxa la yiraahdaa Whitemar waxay martaa southka magaalada iyo westiga iyo eastiga ay kala socotaa Whitemar ma ahan wado weyn waa wada yar oo aan aad wadooyinka waaweyn ma aan Yellowhead-ka iyo waxa ka weyn Anthony Hode highway-gana waa one of the highway-yada yaryar ee magaalada line-kiiba waa 3 line iyo 3 line marka ma weyna marka aad u fiiriso Anthony Hode ama marka wadada la yiraahdo Yellowhead-ka marka waxa weeyaan bariga hore wadanka marka nimid mararkan arko waxaan isdhaxyaacaya aad iyo aad ayaan u baqi jiray waxaan u walbahaari jiray waxaan uga baqi jiray waxaan dhihi jiray waligaa wadadan iyo dadkan waalan ma dhexgelayso mana wadi kartid gaari ayaan is oran jiray maxay ahayd laakiin wax waliba marka aad barato way ku fududaanayaan noloshu marka aan kor ka arkayso gawaaridan iyo waxaan isdhex hordayaa waxay kula yihiin wax aad u dhib badan laakiin waxaad ogaataa gawaarida mid walba qof adigoo kale ah inuu wado mid walba qof nafli inuu wado inaadan dhimanaynin waqtiga noloshaada ha ka baqin nolosha waxbana ha ka baqina waxbana ha ka cabsanin wax waliba haddii aad go'aansato oo aad barato waad gaaraysaa marka qof kasta oo sidii maalinta aan uga baqayay inaan gaari wado maanta uga baqayo ha ka baqin gabdhaha Soomaaliyeed waad wadi kartiin gaari iyo waliba wiilasha Soomaaliyeed gaari wadis waa wax u baahan inaad barato haddaad barato waad samayn kartaa waana wax fudud wax dhib badan ma ahan marka waxa weeyaan wax kastoo barashay rabaan haddii aad barato waad samayn kartaa waad gaari kartaa waad maxay ahayd way ku fududaanaysaa kaas practice make perfect wax walba haddii la barto easy bay noqonayaan welcome to beautiful Edmonton waxaan ka soo degay baskii ayaan uga soo degay meel oo maxay ahayd xoogaa xaafadeeda u jirta waa jimicsiga waa la lugaynayaa waxa weeyaan bas kale waan soo qaadan karay laakiin intaasi waa exercise waa in la lugeeyaa ilaan waa la duqoobay si aan habar loo fariisanin waa in la lugeeyo oo la socdo intaan barafka imanin barafka hadduu yimaado been meel daboolan inaad gashan mooyaane meel bannaana laguma socon karo marka dadka ka baqaya gaari barashadu kor markaad ka aragto way dhib badan tahay laakiin marka aad dhex gasho ee aad wado waxaad ogaataa qof yar iyo qof weynba gawaarida dad baa wada iyagu isma wadaan gawaari kombiyuutar wada waa la sheegayo automatically la jaskaraynayo laakiin wax hadda soo badan maahan oo la arkayo marka waxa weeyaan qof walba gaari walba waxa wada qof waayeela qof yar qof dhexdhexaada oo adigoo kale ah wuxuu qof bini'aadmi sameeyo waad samayn kartaa walaalahayga Soomaaliyeedow haddee hala dadaal especially in waddanka Canada rule adag baa ka jira dadka qof walba safety-ga aad baa looga dadaalaa dee haddii qadartu kaaga dhammaato inaad gaari ku dhimatana malakumood lama celin karo way kaaga dhammaanaysaa marka waxba ha ka baqina gaarigu waa awrka waddanka lagu guuro especially winterka inaad barato waa wax muhiim oo ah ood laysankaagana soo qaadato wax walba waa inaad tababar qaadato haddii aad barato wax waliba waa barasho haddaad barato waxba kama baqaysid barigii horeete markaan gaari baranayo alla maxaa maqi markaan saa u fiiriyo wadadan hadda idin tusayo kale wadda la yiraahdo 97 oo Edmonton ku taal waxaan dhihi jiray bala idan gurata waxaan walla inaan idin dhex galaynin talow goormay suurtagal noqon doontaa inaad dadkan gaari ku dhex wado ayaan oran jiray maxay ahayd laakiin finally
waan bartay waan keenay waxaana ila noqotay wax iska fudud maxay tahay haddana caruurtayda oo dhan maasha allah inta gawaarida wado anaa baray imtixaanku ma lacagta ka bixiya inta kale anaa bara almaha 14 markuu joogo laysanka u horeeya inta loo soo qaado gawaarida ha la baro kaas nolosha waddankan ay ka mid tahay gaari waddankan waa awrkii lagu guurayey reeraan awr lahayna ma guuri karaan qofaan gaari wadanina ma uu meel ma gaari karo marka asxaabtayda youtube ilmaha 14 markay gaaraan laysanka loo soo qaado darayfinka ha la baro qofkii darayfinkan aqoon u baro wax dhib la maahan haddaad bas inaad wada rabto haddaad rabto inaad gaari yar wado haddaad diyaarad inaad wada rabto wax waliba all you have to do waa inaad barato haddaad barato waad fiican tahay wuxuu qof sameeyey waad qaban kartaa wax ilaahay ummadda ka simay baa jiro qofka caddaan iyo madow iyo eeshiyaan ilaahay wuxuu ka simay maskax iyo laxaad markaa maskaxdii dee wuxuu ilaahay ku siiyey ha baqine wax ku qabso ma garat ha caajisina wax ku qabso ka shaqaysay maskaxdan kombiyuutarka ilaahay ku siiyey oo ka faa'iidayso wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh saxaabtayda waan idin salaam